maanta halkan waxaynu isugu nimi inaynu ka hadalno xariga lagula kacay samafale wariye Cabdimaalig Muuse Caldoon oo iminka muddo dhowr iyo 10 cisho ku xiran magaalada Hargeysa oo waliba aan sharci la soo taagin runtii lama oran karo Cabdimaalig sharci darro ku xiran yahay balse xamar in la tagaa xaraan maaha oo xamar dawladtii kara oo daljaarkeena oo loo dhoofi kara oo wadan dawlanahay balse waxa xaraana in la dafiro jiritaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasna Cabdimaalig Muuse sameyn madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud waxaan ka codsanaynaa xaleenay mudane madaxweyne madax meel la taabto ka sareysa ma jirto waxaan ka codsanaynaa inaad xorriyadiisii u sii celisaan Cabdimaalig Muuse Caldoon Cabdimaalig Muuse Caldoon wuxuu ahaa samafale dadka u shaqeeya oo dad badan oo dan yara oo tabaaleysan oo hooy iyo toona aan haysan ayuu Cabdimaalig quudin jiray oo ahaa ila ay quutaan buuha waxaan oran karaa runtii Cabdimaalig wuxuu ahaa shakhsi horumar ku suntan oo gobolka Togdheer iyo guud ahaan dhulka Soomaalida ay tagto magac iyo maamuus ba kale Cabdimaalig hadii uu dambi galay waxaan leenahay hawlihiisa samafalka ee uu sameyn jiray dadka tabaaleysan lagu cafiyo lagu soo daayo mid kale aan ku darayaa waxaan ku darayaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa uu habeenkii la xiray Cabdimaalig oo hadlay waxa uu warbaahinta ka yiri hadallo curfiya oo runtii Cabdimaalig lidii ku ahaa xaq wuxuu lahaa inuu dhexdhexaadiyo saxafiyiinta Soomaaliland moohayn inuu dhinaca garabka saaro oo yiraahdo la soo xiro wixii isaga iyo wixii kala tagay xamar midda kuma saxnayn Soldier hoggaankeedu waxaan leenahay ilaahay mid dhaama Soldier ugu bedelo Xuuto inkastoo waqtigiisiba uu gabagabay yahay